labaatanka December oo ku beegan maalintii la xusay ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ka soo wareegatay 72 sano ayaa maanta si weyn looga xusay magaalada Baydhabo. munaasabadaasi oo ay ka soo qayb galeen wasiir ku-xigeenno iyo maamulka gobolka iyo kan degmada Baydhabo, saraakiisha ciidamada booliska Soomaaliyeed iyo kuwa militariga iyo odayaasha dhaqanka. munaasabadaas intii ay socotay ayaa halkaasi waxaa lagu soo bandhigay gaardiga ciyaar markaasi ay sameynayeen ciidanka booliska Soomaaliyeed. munaasabada ayaa waxaa ka hadlay saraakiisha ciidanka booliska gobolka Bay iyo kuwa militariga. ku shukriyaan in geek yani inta isku qoynaan haddii reer goboladan Bay iyo Bakool reer Shabeellada Hoose dan dabal dego haysan guuradii 72 aas-aaska ciidanka booliska Soomaaliyeed. ciidanka booliska Soomaaliyeed waa ciidanka ahaan dhammaan ciidamada qalabka sida hooyo aan away militariga iyo dhalan nabad sugid iyo dhalan asluubti iyo dhalan ciidamadii lacag aasaasiyo dalku amni ahaan loogu talagalay. sidoo kale waxaa munaasabada ka hadlay gudoomiyaha degmada Baydhabo ahna duqa magaalada Baydhabo Cabdullaahi Ali Watiin iyo gudoomiyaha gobolka Bay Cabdirashiid Cabdullaahi. maaringan qaybgala ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ku wareegay todobaad muuse سكولي كوري باريو نشاقي ما يبغى تاريخ بدل يحمر يبوليسك ولا ما هم يكملون كأنا عيرنك سنة جورس دي أبوي بوها إن الدبلين فيري سنة كلها مودي سنة كلها هدر يرونا لك تلاقى ولا يلقى بدفعي برا سنة كون سنة دي وين رجعنا هو بيلاهي نفتني نقسم أنت نودم بويت مثل هو نفتي لاهي نقسمه يعني سنة جورس اسمه دل حصول حبان لك والقبض رسمي sidoo kale munaasabadaasi ayaa waxaa khudbad dheer ka soo jeediyay qaar ka mid ah wasiirada Koonfur Galbeed Soomaaliya, wasiirka dhaqan celinta iyo tababarada maleeshiyaadka Xasan Xuseen Xasan Eeley iyo wasiirka maaliyadda maamulka Koonfur Galbeed. may fadaan in ma hadnagno shaqada wanaagsan ee bulshada Soomaaliyeed iyo hayaan maadaama ay asal shoobiyo ku jeedaan bulshada tababarka la hasii iyo wala la barin in dadka shacabka ee sidoo iska meel ma fadeen iyo on la shaqeeyay fadeen maadaama ay ma ingaragaan shaqadii tiyo dad gudadii guulaha hooy wanaag badan soobi shacab badan badbaadi arlaadu uu ku noolno Koonfur Galbeed leerawna shaqa ma balleen hel ma mu kun iniyo Maxamed Nuur Mandela Royal TV Baydhabo.